waxaan salaamayaa gudoomiyaha waxbarashada gobolka bile gudoomiyaha caqaafta degmada gudoomiyihii hore magaalada Cabdilaahi Cabdi Faarax kormeer Cadnaan macallimiinta Al-Cirfaan oo isku duuban dhamaantood uu daawadu madax yahay salaanta islaamka idinku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam dabadeed madrasadan Al-Cirfaan ee aynu joogno in badan baa laga hadlay wax badanna waa laga yiri kollay taariikhdeedu way fac weyn tahay ma soo koobi karno bee anigaaba inta jiray garanayo intii wax la dhiganayo halka lagu dhiganayo lagana aflaxay waxa kaloo sidii ka dhawaajiyeen raggii ugu horeeyay Al-Cirfaan waxay ku suntan tahay culuumta islaamka iskuulada ku yaala degmada Arabsooda 18 iskuula 18 kama macallimiinta diinta ka dhigay iyo Carabiga Al-Cirfaan bay ka baxeen inaan lagu qadaynin diinta Cabdilaahi oo kaasaa markaa hore islaam bay noo kumaynaan qadaynin imigana waxaan dhiirigelinayaa macallimiinta da'da yar leh ee sida tiknoolajiyada tartankan u soo agaasimay waana wax loo baahan yahay in ilmaha la dhiirigeliyo mar kasta oo la jaan qaado sida loo dhiganayo waxaan gudoomiye bilo leeyahay gudoomiye da'yar oo firfircoon gobolka joogay imigoo tartankii kubadda imiga sameeyay tartankii kadiska ee iskuuladana waadi ka dhawaajay in isagana soo dedejiso si ay uga qayb galaan iskuulada aad arkayso iyo madaariskaasi aad iyo aad baan idin hambalyeynaya dadaalka halkaa ka sii wada maasha Allah oo wax lagu farxo ilmo yar oo da'yar oo inta leego su'aalaha diiniga la weydiiyay ka wada jawaabaya marka waqtiga aad geliseen ilaahay baa idinka jisaaysiin dee midhaheegina waa la hayaa waynaga maanta fooq qurux badan hoos joogna bari toolana kii camiran macaardadiisa macaasharaxan ayay noo dhamaan doonaa insha Allah aad iyo aad bay farxad aniga igu tahay ardaydana waxaan leeyahay halkaa ka sii wada mar walbana ajarka waad helaysaan iyo xasanaadka xagga ilaahay dunida ayaamaa la jooga waa laga tegayaa qofku wixii uu shaqaysto ee khayr leh macallinku mar walba adduun ma helo xitaa ka mushaarka qaataa maaha adduun ku noolaado laakiin waxa weeyaan wuxuu dad buu beertay idina waad ka sii xag jirtaan marka Allah barakeeyo sheekheena weyne ilaahay caafimaad ha siiyo sareecana ilaahay waa weyne sheekh Daawud macallin oo aynu harsanayno midhiisii Al-Cirfaan oo dhan waan ducaynayaa dhamaan ardayda iyo macallimiintaba salaamu calaykum waraxmatullaahi waxbarashada gudoomiyaha degmada Arabsiyood gudoomiyaha hore maamulka madrasada macallimiinta waalidiinta ardayda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam kadib man yuriidullahu bihi khayran yufaqihu fi diin qofka ilaahay khayr la doono wuxuu fahansiiyaa diinta qofka ilaahay khayr la doono wuxuu fahansiiyaa diinta ayuu fahansiiyaa rasuulkuna wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam qofka mara dariiq isagoo doonaya cilmi sahala allaahu dariiqan ila aljanna ilaahay wuxuu sakhiraa dariiq jannada ugu maro ilaahay dariiq jannada inuu marno ilaahay noo sakhiro halkan waxa loo waqti uu gaaban yahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay ardayda ku tartamaysa diintii ku tartamaysa oo waliba si arday jaamacadaha iyagoo galaaskii sharaad jooga cilmiga halka ka muuqda arday jaamacadaha dhigata ayaan inta garanay waa fadli ilaahayna siiyey madrasada Al-Cirfaan ilaahay siiyey Arabsiyo ilaahay siiyey waxaan leeyahay guulaysta jasaakumullahu khayran jaziilan qofkaan dadka u shukri naqin ilaahayna u shukri naqo man lam yashkuru nnaas laa yashkuru Allah qofkaan dadkan iyo ciddii wax bartay iyo macallimiinta u shukri naqin ilaahayna uma shukri naqo qalbiga ilaahay idin ilaaliyo carabka ya Allah haydin xifdiyo waxaa leeyahay Luqmaan al-Hakiim wuxuu ahaa adoon habashiya sayidkii lahaa ayaa u dhiibay neef
ayuu dhiibo wuxuu neefkaa soo qowraco waxaa tidhahaa neefkaa soo qowrac soo qal waxaad ii keentaa labada wasladood ee ugu fiican wuu soo qalay wuxuu u keenay qalbigii iyo carabkii haddana maalin kale u dhiibay neef kale ayaan kadib wuxuu ku yidhi neefkaa soo qal waxaad ii keentaa labada wasladood ee ugu xun wuxuu u keenay haddana qalbigii iyo carabkii markaa qalbigu wuxuu u weydiiyey markaa maxaad maalintii koowaad waxaan kugu yidhi labada wasladood ee u wanaagsan ii keen waxaad ii keentay qalbigii iyo carabkii maalintii labaadna labada wasladood ee u xun ii keen baan ku yidhi waxaad ii keentay qalbigii iyo carabkii maxaad uga jeedaa wuxuu yidhi waa laba wasladood qalbiga haddii wax wanaagsan loola kaco dee waa labada wanaagsan ugu wanaagsan haddii waxun loola kacana qalbiga iyo carabka dee iyagaa ugu xun marka alxamdulilah qalbigii iyo carabkii diinta ku akriyayno ilaahay haynagu sugo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu